بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan idil ahaantiin ba saaxiibayaal daawadayaal meel kasto aad dunida ka joogtaan halkani waa stuudiyaha Somali Cable ku leeyahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka saaxiibayaal barnaamijku waa barnaamijka caawa iyo caawil qodobka aan ku soo qaadan doono maanta waxa uu ku saabsan yahay dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota waxa ku badan dadka Soomaalida ah tiradoodu ilaa iyo haatan waxa lagu qiyaasaa dadka degan 100,000 halkan waxaanu ku dhalnaa caruur waxa jooga jiilkii saddexaad oo haatan ku dhashay balse jiilka labaad iyo waalidiinta ama jiilka koowaad ayaa waxa ka dhex jira isfaham daro wareer caruurta oo haatan dhib badan laga tirsanayo dhibta ciyaalka laga tirsanayo ama ilayhi waa la imaadeen waalidka khaladka iska leh mase caruurta mase bay'adda aynu soo dhex galnay ee ah qurbaha dhaqanka iyo sida aynu wax u korneyno qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka ujeedaduna waxa ay tahay in barnaamijka aan isku siino talooyin sax ah haddii aynu aragno inay anfacayaan jaaliyadeena barnaamijkan waxaa marti iigu ah oo maanta igala qayb galaya isla markaana aan wada falanqayn doonaa Cabdirasaaq Warsame oo kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool qurbaha isla markaana ah waalid waxa kaloo isna barnaamijkan ila falanqayn doona oo in badan aad wada aragteen anaga oo soo wada fadhina dhinaca shaashada Faadil Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana caruurta kala shaqeeya sidii loo horumarin lahaa ama ay mustaqbalkooda u hiigsan lahaayeen labadiinaba ku soo dhawaada Somali Cable TV waa mahadsantahay saaxiibkay cawl iyo dhammaan baweynta Home Cable TV Somali Cable TV waxaan leeyahay meel kasoo joogtaanba shaqada wanaagsan ee bulshada u qabanaysaan iyo warka muhiimadda leh ee runta aad soo tabanaysaan aad baa ugu mahadsantihiin hadda inaad shaqada hore si wado way aad baa mahadsantahay Cabdirasaaq adiguna ku soo dhawaad Somali Cable TV Somali Cable iyo cawl wariyeen dhamaantiin way su'aasha horeysa waxa aan ku bilaabayaa Faadil Sheekh Maxamed Faadil waynu ognahay qurbeena joognaa dhibtu aska badan tahay laakiin marka inuu rabno inaan meel wax saarno waxay dhibaatada qurbaha keenay caruurtoodna waa tan laga cabanayo dhib badan baa la tirsanayaa waalidiintu waa wareersan yihiin dhibta caruurta ay la imaadeen xagee bay ka bilaabatay ma waalidka mase caruurta laftigooda marka horta aad baa u mahadsantahay saaxiibkay cawl fursada siisay marka labaad haddii aan hawsha su'aasha aweysa ka jawaabo dhibku labada dhinacba wuu ka iman karaa laakiin waxaa moodaa inuu kastoo yahay isfahan darro dhex martay caruurta iyo waalidkii oo haysta dhaqankeena Afrika oo ilmaha fadhiisa ka wax amarka la siin jiray iyo ilmihii Soomaalida ahaa oo meesha ku koray oo qaatay dhaqanka Mareykanka oo ana amiir wa anta amiir yani ilmo inuu waalidka la sheekaysto saaxiib la noqdo arintaas qaatay taas marka waxay keenaysaa marka ilmihii markuu gaaro 10 sano ayuu ogaanayaa inuu waalidkii wax yar aqoon dheer yahay sida luqadda oo kaleeto waalidka inta badan waxa laga yaabaa luqadda in si fiican ugu hadlay soo ilmihii waxa arkay markuu iskuulka tago waalidkii oo luqadda ku hadlaynin marka warqad meel ku soo dhaco kaleeto waalidka warqadda akhri kana kale ay akhrinaya marka telefoon la wacayo dan waalidkii wuxuu sameeyaa marka inuu asagu mudan yahay inuu mas'uuliyadda reerka maamulo asagu nasiir waalidka maamulo laha waalidkiina wali waxa ku jirta dhaqanka Mareykanka Afrika oo ah haddii ilmuhu markii uu arko ilmuhu ama guriga kasoo yardaahaya ama iskuulkii maaragtay wax laga soo wacayo dhib ka sheeganayo waxa laga yaabaa marka qarka inuu gacan qaado xitaa waxa laga yaabaa marka qarka inuu xitaa canaanta dhici karto canaantina ilmuhu ma adkeysan karo taas marka waxa jirta waxa la dhaho cultural shock oo u dhaxaysa yani isfahan darro dhaqanka ah oo waalidkii ilmaha u dhaxaysa laakiin xaqiiqatan bulshada guud ee Soomaalida hadaan nahay qurbaha joogta waxaynu ku yar ka gaabinay inaynu waalidiinta Soomaalida u furo wax la dhaho dhaqan barid يعني إلا برقابك قربها ما كان جوجا إلما لا رقم يعني رقم كبير كدوية هي إلما لفتيس إلا رقم لا رقم عليه ولا تصل برا واردك لقد الإنجليش كدو سكوا هذا المعنى هذا ما واردك أوصي هاي قفر قول هاي معنى ذو حيت هاي لقد ما واحد برضه وزود لقد الإنجليش كوا الله واردك كانوا وحصل بقى الله لقد الصومالية سواء تلك بتلك سو ilmaha laftiisa in soo yar dhaqaliyo kor loo soo yar qaado ku fiican tahay laakiin Maxamed labadii groupkii u soo saaray weer fashilman wada waxa Soomaalida ku maamaada war la heliyaa tala la hel markaynu ogaano dhibta meesha ka imaanayso andan marka wixii talooyin oo aad isleedihiin waalidkii waad ku korin gabaasiinaysan waxaan rabaa Cabdirasaaq Warsame oo loo yaqaan AJ balaasna u gudbo AJ waad maqlaysay Faadil halka uu wax dhigay adigu sidaad u aragtaa dhibta caruurta haysata ma waalidka mase waa caruurta والله فاضل وكرة حسنا هاي سيدو هذا الكودي
laakiinse sidaas si yar oo la mid ah baan rabaa inaan u dhigo horta dhibta ugu weyn oo jirta oo dadka Soomaaliyeed haysataa waxa weeye Soomaalidu runta inay ka hadasho ma jecla haddii beesha dhibtu ka imaanaysa laga hadli lahaa xalka waa la gaari lahaa xalka intiisa badan waxaa lagu gaarayn wax badan baa la qariya أنا وحن آمن سنة هاي وحكستا إني كإيماني والد المو هدي وناك سميان يهدي حمان سميان والد كي كإيماني سبتو هذا كور وحربت سؤالي رنا نسيو لبا الصومالي أو دمرا باوده هدلي مركا مدبا وحي تري نا اسكدا المهانو وحي إلهي أخري أي مريان مركا مدي كلايا هذا الآدو حكمت بدن تري وحي تري هبلا متوكتا ها بتري صدقة ما بحساب بتري ها ما حد إلهي كفي لي بتري إلهي وحي وناك سنبا كفي لي بتري معنى هذا وحي وناقة إلهي دادك ما ظلميو وحكستو إنو أينو سمينو خلط المهينو ويقصو نقنيا مدى لباد المهينو لقن كيني إنو مكينو ودين كي جوغني هل لقن بينو لهاين لقن كينو لهاين وحوها حول هاينو راعي جرني ودنك وكبدلين ودنك المها الراعة marka waxaad arkaysaa wadankeeni waqtigii aynu joognay bay'ada iyo dhaqanka bayna korinay kan uu ka duwan yahay kan sidaan geel u raacayna u ilaalinaynay waa in ilmaha u ilaalina marka waxaan aaminsanahay number 1 as waalid ahaan inaynu isu saxano markaynu inagu saxano kadib waxa imaanaya in ilmaha xalkooda la gaaro waay sidoo Cabdirasaaq halka uu dhigay waad aragtaa Faadir maadaama dalkan uu yahay dal aan fursad ku siinayn inaad ciyaalkii inta badan raacdid oo waalidkii ay ku taagan yihiin sidii ay u kofar garan lahaayeen ama ay u dabari lahaayeen noloshii oo dabiil laga rabo waad garan kartaa inagoo dhan boqor baynu ku noolnahay intaynu waqti haysano waa iska yartahay sidee bay ugu suurtageli kartaa in waalidka ay caruurtiina ilaaliyaan oo raacaan sida uu sheegay KJ noloshiina ay dabaraan oo aad garanayso haddana mid kale waxaan rabaa bal horta inaan cadeyno caruurtaynu ka hadlaynaa waa kuwe caruurta kategoriye baran kuwa dhashay kuwa dhexe iyo kuwa hadda qaan gaaray kuwa aynu rabno inaan xoog saarno oo hadda la yimi dhibaatooyinka waa kuwa markan nolosha la qabsado ama qaan gaaray kuwaas ma dhib la iman kara kuwa kale oo yar yar inta la korinayo wax wala bari kara marka caruurta laftigooda aynu ka hadlayno inaan meel saarno caruurta aad idinku hadda rabtaan inaad waalidkii talana ku siisan aad ka hadashaan waa kuwa horta waxa ugu muhiimsan walaalkay soo dhigay waa kura inta baa ku raacsan laakiin wax yar baan ka yar duwanahay caruurta horta su'aasha hadan ka jawaabo aan rabnaa ka hadalno waa caruurta dadooda u dhaxayso 13 ilaa iyo 20 haduu dhaafo qofku wuxuu yar noqonayaa qof oo yar majuura oo ama jeel galay ama boolis hor istaagay ama waxoogaa yar khibrad u lahaanaya laakiin 13 ilaa iyo 20 inta u dhaxaysa waa inta xilligu boodboodayo Afrika marka la joogo xitaa caruurta marka inta leeyihiin dhibaato lahaan jirin oo meel kasta dunida la joogo waa xilliga qofka hormone change way dhangaal u dhahaano waa qofka xilligu isbedel ku dhacayo oo dad yareed buu ka tagayaa daawayna wuu gudbaaya xaqiiqatan waalidku in way hadii la fiiriyo qayb buu ka lahaan karaa laakiin caruurta laftooda waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan bay u baahan yihiin oo waxa arkaysaa ilmihii oo waalidkii markuu ku dhaho ama waxa samee ama maanta suulka waxa ka soo daahday ignore oo diidayaba waalidka xulay maanta suulka waxa ka daahday waa la soo wacay maanta suulkii ma tagan maxaa dhacay saantu kor hoos u ka dhaqaaqaya hadduu warku soo celiyo waxa laga yaabaa dhaqaaqaba kuwa ardayda qaarkood caruurtii waa handadaysa baxta mararka qaarkood oo waalidku duu ilmihi la hadlo xulay inaa baa ku wacaya oo 911 laftiisii oo lambarkan oo emergency loo wacdo oo askarta ku dhacaya qaabka u shaqeeyaa waxay tahay dadkan ajnabiga oo la noolaay ilmahooda xitaa hadii garaacaan oo 911 u yimaado waxa laga dhahayo laakiin inaga asii ma garanti hama ku 911 la waco oo booliisku yimaado waxa dhici karta mararka qaarkood inuu caruurta la safto maadaama uu arko waalidku luqadda ku hadlaynin inuu xitaa taas iyo dhacayta mardan waxa dil ugu celiyo nasawa macallimiintii laftooda qayb ka ciyaaraya oo ardayga weydiinaya gurigeena maxaa ka jira kan maxaa ka samaysaa hadii marka ilmuhu uu dhaho ama guriga anaga shan ilmo baabahay dhalay ama hooyada dhashay waan islaynaa hooyada ugu qaylida waxa qoraysa warbaab bay qoraysa waxa ugu gudbinaysa county soo waalidkii barashar badan baa haysta waxa ilmihii ah waalidku laakiin marka uu saad dhaco wuxuu sameyn karaa kuwa waxay sameeyaan garaac bay bilaabayaan taleefan ka baxaysa kuwana waxay subanayaan wax isku dayay ilmihi inay saaxiib ka dhigtaan markaas iPhone qaali ah iyo computer qaali u soo gadaya asagoo isla habi ka dhigil ma laakiin xaqiiqadu saas ma
ilmaha wuxuu u baahan yahay markii oo la arko inuu doonta ka yarbaxayo ama uu yar boodboodayo inaadan ka fikirin wuxuu rabo inaad siiside aad ka fikirtay ina way inaad maskax la imaatid inaad saaxiib ka dhigatid isla markaana aad u tusisid inaad ka yar caqli badanto ka yar mustawa sarreysid laakiin hadduu ilmihii weli taladii muran noqoto aqoon ahaan ilmihii aad ka aqoon badanta ku arko systemkiina ilmihii uu la safanayo dan waalidku marka waxay noqonaysaa way feelgaranayaan taas waxay keenaysaa marka carruur fara badan inaad ku aragto Minneapolis taaganoo ama qaarkood qaar dilahaya ama gaadhi dhaceen lagu leeyahay waxaasoo dhan waa problem ka yimid systemka uu kareedgareeyay ada sometimes waalidkuna ay say waajihi lahaayeen ay ku yar Cabdirasaaq dhinaca kale marka loo eego carruurta qurbaha waalidku waxay jecel yihiin ilmihiisa inuu noqdo ilmaha ugu wanaagsan ilmaha ugu akhlaaqda fiican ilmaha waalidka kaliya lama joogaan iskool bay aadaan saaxiib bay leeyihiin suuq bay tagaan waddankaas system nidaam baa ka jira marka waalidka laftigooda soo lama macaamilayaan dhibaatooyin kale oo ka soo afuufmaya dadkay ciyaalka la kulmaan hadda iskooladoo kale waad aragtay dhibta lagu hayo ciyaalka ciyaal kale waxaa laga yaabaa Soomaali ah ama ciyaal kale inay maaragtay dhibaato u geystaan iyadoo ay taasi jirto ma isleedahay waalidka arrintaasi waxba kama gaabina iyaga tooda way qabsadeen systemka iyo nidaamka iyo waddanka aan nimi oo aan ahayn waddankii aynu inagu naqaano dhaqankeena iyo diinteena sidaa sheegtay bay adduunka koreysay baata taasa dhibaatada keenaysa ma isleedahay horta cawl su-aashaada intaadan aan ka jawaabin waxaan rabaa hal hadal oo faadil iga raacay inaan wax ka iraado da'da cunug 13 sano markuu joogo adigu ma xukunti cunug akhlaaqdu waa inuu 1 sano marka uu jiro hameenka u dhasho waa inaad ku bilowdaa cunugaas 13 sano wuxuu ku gaaray maanta aad sugtid cunuga aad u shaqo ku mali mana xukuntid waxna uma sheegi kartid cunugu waa inuu og yahay from 1 ilaa 13 inta u dhaxaysa inuu helo akhlaaq iyo diin inuu helo iyo jacayl taasdan ka gudubno qorunta markii si loo eego iskuulaadkii iyo waddankan culture-kiisii intaba dhib ka taagan see looga bixi karaa marka waxaa looga bixi karaa laba waalid oo wada socda ama hal waalid oo wada socda oo ilmihiisa ka warhaya iskuulka waxba ma oran karo dhibna uma keeni karo ilma iska soconayo oo aan waalid wadan qof kasta advantage ka qaadanaya marka dhibtu waxa weeye tusaale yar haddaan ku siiyo aniga ciyaal baa iskuuliga aada cunugan da'diisa ku qiyaasay 8 sanadood ayaa macallimadu waxay weydiisay hebel goormaad keenaysaa hooyo iyo aabe waxaa dhici karta cunugaas inuu jiro 8 sano iskuulka imaanayay hal maalin oo kamid ah waalidkiisa iskuulka ma imaan subaxdii bas lagu soo daraa wuu geeyaa duhurkiiba ku qaadaa waa u geeyaa ilmahaas dhicido ma leh marka dhib badan uu face garaynayaa waay anigu waxaan isleeyahay waa waalidka weli aan waalidkaan iskuulku maadaama uu yahay meel kale oo ciyaalka macallin u noqon karta dhinaca kornimada intay ku jiraan ma isleedahay dhibaatooyinka ay kala kulmaan oo caqabad ku dartood inay iyada laftigooda saldhig u tahay dhibta lagala kulmayo ciyaalka oo ay ama dambiyada u galayaan ama cunugii wax maqal la'aan uu ku dhacayo inuu xaggaas wax ka soo barta ma laga yaabaa waalidkiin aan la dhil garayn karin xagga horta hadda falalkan dambiga horta Soomaalida ay sameynayso waxaasoo kaleeto iyo ilmo iskuulka ma barto iskuulka inta badan waxaa la baraa wadan jacayl isku duubni midnimo in meel dhaxal iskugu yimaado akhlaaqiyaadka wanaagsanaa oo islaana qaata badan diinteena wax ka yimaadeen baa la baraa laakiin hal arrin baa ku raacsanahay saaxiibka AJ oo ah waalidka labada waalid hadday wada nool yihiin problemka ugu weyn ee saaran waxay tahay waxa arkaysaa 10 waalid oo Soomaalida artama 20 waalid oo Soomaalida waxa dhici karta 17 kamid ah inay wada nooleen baa xitaa oo ama sabareed kala yihiin ama ninkii odaygii aysan iskuba qorraxta taas marka dhibaato keenaysaa ilmi marka uu arkayaa aabihii oo guriga marka ka soo moore ka baxaya ama xilli dambe iman haya oo kasto waxa bilaabmaysa marka corruption buu dareemaya ilmaha Mareykanka ilmaha Soomaaliya way ka yar duwan yihiin ilmaha Soomaaliya waxay hayaan dad uu la dhaho amar la siiyo aan talaba la wadaagin laakiin ilmaha Mareykanka mas'uulka marka tagaan su'aal baa loo qorayaa su'aasha ka jawaabaya way ka doodahayaan dadmeers maskaxooda way furan tahay soo guriga markuu yimaado ilmo yar oo si Soomaalidu intuu cunto cunto iska seexanaya ma
waa qof weyn oo fikirayo oo isweydiinaya aabbahan muxuu dhumanayaa aabbahan muxuu leedu imanayaa wixii oo dhan marka wuxuu ogaanayaa in systemku wax laga uu systemku qaldan yahay buu ogaanayaa halka marka problem baa ka imanaya arrinta kale waalidku waa runtii oo waalidka Soomaalidu inta badan xitaa marka la qabto waxa la teachers and parent conference ma tagaan horta Soomaalidu ma tagaan inta badan isku sideen ilmihii ma tagaayo so waalidiintu marka hadday ku xidhnaan lahaayeen iskuulka oo iskuulka macalinka konsalka ka warqabi lahaayeen oo macallimiinta xataa saaxiib la u tagi lahaayeen oo mar xataa giftikaara yar oo $20 $10 oo waxa jirta Starbucks macalinka loo geeyo macalinka xitaa waalidku wuxuu siin lahaa sirta ilmihiisa sababta keenaysa ilmihiisa inuu gradekiisa hoos u dhaco ayuu siin lahaa arrinta kale waxay tahay waalidku waxay u baahan yihiin dhaqanka Soomaaliga waxa odaygu keligii baa cuntayn jiray marka cuntada la karo Soomaa Mareykanku sidoo kale duwan tahay وإن فيت كما كانت أنتي لسكو يمادو مرة كقاركود حلقة سبيشال سبتي حد وكلاته حلقة نجاس أفتان هاي ووالدك الساعة عنتظر وهراريو وأنا عنتظر لعنون الشاكيو والله سبرت مركز ودلميه برت متك عنتظر بابا هي متك عنتظر قاعد اللي قالوا يقولوا باهم متك وأنا سبرته هل كان مك الشاكو حكى للمنس وحلو فاميلي هود بقى أنا دتك اسكو دومان لكن هذا قف وكفي كرو ونصير صاحب جاي شيء إن الميس كل الله درا الميس كي يمادو المي كلي عنتظر مركو عنو وماشي كاتجو gabadhu ay qaado marka waa dhaqan waa culture-ka ku sheegay dhaqanka Soomaaliya waalidka haystaan dhaqanka Mareykanka carruurtu haystaan way isqaban lahayn marka clash way faadilow marka laga hadlayo iskuulada macnaheedu ma aha galaashada ciyaalka ay ku jiraan baa wax lagu baraayo wax lagu baraa ciyaalku waxay la macaamilayaan ciyaal kale oo xaafado kale ka yimi ciyaal kale oo iyaga laftigooda waxay wataan ideology kala duwan kuwa xadka ka baxsan kuwa drugs yaqaana kuwa ilbaxa ma garatay waxa markay la kulmaan ciyaal cunugii guriga ka baxay taasaka wuxuu arkay ciyaal fara badan oo kala duwan oo iskoolka yimi kuwaasaan ka wada inay saameyn ku yeeshaan carruurta ma laga yaabaa ee galaashada ma okay waxaan fiirinaynaa bal hadda gobolkan aynu ku noolnahay ee Minnesota Soomaalida degan Cabdirasaaq ciyaalka maxaad ku qiyaasi lahayd sida loo koriyay miraha ay dhaleen oo ka soo baxay maxaad siinaysaa good or bad ama wanaag iyo xumaan maxaad siin kartaa because waalidka laftigooda waxay isku dayayaan inay sameeyaan wax wanaagsan oo ciyaalkoodana uu ka dhex muuqdo ciyaalada kale sida hore u sheegay ilmana ma rabaan marka maxaad ku qiyaasaysaa ma nahay dad qurbihii soo galay oo ciyaalkooda meel saaray marka laga soo waxa laga lambar yar inay jiraan laakiin bal qiyaastaada wala awlo ma santahay qiyaasta markii loo eego horta always sida bini aadamku u nool yahayba dadka wanaagsan iyo dadka xun hadii waxa mar walba ishu qabanaysa dadka xun dadka waalidku in badan oo dadaashay ba jira markii la eego masaajidada waxbarashada jaamacadaha college-ka high school-ka markii loo eego dadka cadaanka markii laga reebo dadka labaad oo waxaynu nahay ciyaalkoodu ka gaaraan waxbarashada heer markii loo eego state-kan haddana markii loo eego community-ga aynu la noolnahay oo Minneapolis number ahaan ciyaalkeenu aad bay uga muuqdaan ilmo badan oo aan wanaagsanayn marka ciladu waxay ka imaanaysaa laba meelood sida uu walaalba sheegay Faadil waxay ka imaanaysaa waa waalidku marka sidee ayay ma u diyaarsan yihiin dad in ay ilmahan wadankan ku korsada ah raalinaga tusaalooyin baan rabaa inaan soo qaadaya maalin maalmaha kamida waxaan joogay targetkan Lake Street ku yaala waxaan arkay laba yar gabdhood oo midna da'deeda aan ku qiyaasay 12 midna aan ku qiyaasay 10 sanadood nin security ah oo targetka jooga ayaa labada gabdhood meel ku hold garaynaya marka anigu dabeecad ahaan waxaan ahay ilaa waxa aan ogaado waxba kama iraado marka attention-kayga nin wax samaysanaya iska dhigay waa dhigaysta marka wuxuu ku yiri laba option buu siiyay wuxuu siiyay ma police baa idinku wacaa mise waxaad haystaan baad soo saaraysaa way isfiiriyeen alaab yaro intaa leeg ay jeebka mid ka soo saartay ishan oo baalasha wax lagu qurxiyo way makeup ninkii marka waa la hadlay cadaanka wuxuu waa sheekaysan wuxuu yiri gabdhahan age kana ilaa 14 sanadood cameradan ka arkaa beeshan waxa ka shaqeynayay 8 sanadood
waxay tegayaan meeshaas alaabtaa yartaa bay soo xadayaan alaabtan imsi joogtaa baan ku yidhi wuxuu igu yidhi $2 bay joogtaa okay ilmahan $2 waxaan u baahnaa hooyaduna way awoodaa waxay ku kaliftay inuu wax soo xado inuu soo xado inaga marka waxaa inaga dhacsan fikir ah ilmaha haddaad lacag siisid way ku xumaanayaan ilmaha inaad lacag siisid isna necessary ilmuhu waxay u baahan yihiin haddaad u gadid ilmuhu waxay noqonayaan ilmo adigana ku maqla midda kale asad Soomaali dad iska jeebiro waxaynu nahay ku xiran baalka la yiraahdo check ilmaha Mareykanku waxay uga duwan yihiin ilmaheena Afrika haddaad ballan u qabatid meel buu ku qoranayaa ballanta ha uga bixin ballanta ha uga bixin wuxuu u baahan yahay si marka maxay ku kaliftay bari waxay u baahanaysaa lipstick haddaad u gadi weydo laba mid bay noqon inay soo xado ilmo kale inay la isticmaasho xanuunka qaado way marka waxaan aaminsanahay waa waalidkaan weli waalidkaan haystaa way Fadil caruurta waalidku marka ay rabaan inay ciqaabaan siyaabo kala duwan bay u maraan qaybi waa ay garaacaan qaybi guriga ayay ka ceeriyaan qaybina hadalka ayay ka xirtaan intaasoo talaabo markay qaadaan waxbaa ka soo baxa ilmo waxaa laga yaabaa dilka inuu wax ku qaatay kan la ceeriyo waxaa laga yaabaa inuu suuq sii galay kan laga aamusayna inuu codad sii gasho ma isleedahay talaabada ay qaadeen waalidka kala duwan oo ilmahooda ay ku sameynayaan waa talaabo ku habboon dambiyada ay galeen inay ku qaadaan ciyaalkase wax ma ku qaadanayaan oo wax ma taraysaa horta inta badan garaacu Mareykanka kama shaqeynayo oo ilmihi haddii la garaaco oo korkiisa athar lagu arko adiga waalidka dhib u soo gaarhaya ilmihina dhib soo gaarayo in la qaataa oo dhici kartaba oo hawsha weynaato tan kale hadda guriga laga ceeriyadana option kale tama ah oo ilmihii haddaad guriga ka ceeriso waxay la mid tahay qof biyo hirqo taagnaa webi oo yaxaas ka batay hirqi taagnaa oo intaad haraati ku dhufad aad ku sii riixday waraabi baad siisa sooma waraabihii uu ka soo cararahayay ee u gacan hadanayeen baad u sii ceerisay daairad ka soo xidhatay oo taasna option ma waayo Soomaaliya ilmaha hadda guriga laga ceeriyo wardi jiray eedadii ama abtagii buu tagay jiray markaas la soo celin jiray Soomaaliya calaamad lagu keenay jiray meesha waa sida la rabaa la sii duubsanaya optionka ugu yar fiican waxay tahay ilmuhu haddii aad sir faham weydaan in aad raadisid qaab inta ama casho geysid ama muqaayad geysid ama qolka la gashid ama si uun inaad la hadashid ilmi oo hadashaan oo meel dhax isku imaataan soo saaxiibka ay sheegana hawshu waxay ka bilaabanaysaa koritaanka hoose kowga 2 sano 3 sano 4 sano iska soo bilaabanaysaa ilmaha in laga dhigto saaxiib oo saaxiibkaana saaxiib too much oo soo noqon oo ilmuhu ku control وأنا وح بالانس نقط وأنا أقول المية كنترولين بقول المورا كنترولين لكن عقل اللي ما تدا إن المية هذا كعقل بدس أوت كنترولش وصاحبك الشيء هذا عقب لنقاده وكلاته بلانت أتكسب بحي هدين كيس أنت عقب لنقاده بلانت كوسر تقلوا ويضاء هم شغال لقى حيريو هم حسب درنا وين أنت تسافر السات لسن بلانت ماكوق هذه لكن سدن بحول حال فأنا شبر بلانك ما هذا يهيسته ما حتى لا أصير تلاقي سوء علسد دلو كل صعب أحواشها واحدة لكن مهمة waxay tahay un waalidku intay goor tahay oo soo arurta halka gaarin waa inuu ilmaha xalaqaad badan siiyo waa inuu waqti badan geliyo khaasatan rag oo kaleeto gabdhuhu way dadaalaan xaqiiqatan gabdhuhu aad u dadaalaan laakiin dadka inta badan kaalintooda gay waa ragga way in Cabdirasaaq maadaama halkan ciyaal aynu ku dhalnay sida ugu habboon in waalidka laftigiisa waxa laga yaabaa talo inuu haysto ama si wax u garanayo anagu maadaama aan ciyaalkeena wada yihiin sida ugu habboon oo ciyaalkiisa uu xiriir wanaagsan ula yeelan karo asaguna si uu ku qanacsan yahay ay u koriyaan oo waxbarashadooda u wataan oo asluubtooda wanaagsan tahay ilmuhuna ay ku qanac karaan waalidkood sida ugu habboon maxaa yeelay marar badan waxa aragtaa dukaamo waaweyn ba halkan leeyihiin dukaamadana aragtay waxaad arkaysaa ilmo badan baa soo galo kala duwan ajnabi leh Soomaali leh ma garanaysaa hoosa cunug Soomaaliya ku dhigdhigaya maaragtay alaab oo leh waa qaadanaya maamadii oo qaylinayso leh waa dig oo leeyahay oo loo deynayo saameyn intee la eg bay ku leedahay kuriimada ilmahaas marka wax ku dhigay ee loo daayay iyo waalidka talada arabta inaa siiso labada israacso wallahi horta haddaan ku horeeyo arrinka ilmuhu wadankan waxaa jira
waxaa la yidhaahda kindergartenka inagu Soomaaliya ma lahayn macno badan baa ku jira anaha ku jira wuxuu yahay ilmaha waxbaa lagu baraa waxaa lagu baraa line up inuu noqdo inuu qashinka tuuro cuntada meesha ka cuno inuu ka qaado sharingka waxaa la yidhaahda sharingka waa number 1 waxaa la leeyahay waxaan adaa iska leh waxaan waxa iska leh faadil waad weydiisan kartaa waa la share gareyn kartaa awil adna waa la qaadan kartaa ilmaha marka waxaa la baraa waxaan adaa leh laakiinse saaxiibka waa la share gareyn kartaa da'dee bay ku bilaabaan kindergartenka waxay ku bilaabaan 4 sanadood 4 sanadood waa lagu marka geeyaa ilmuhu waxay imaanaysaa in yowda halkaasaa laga soo baraa shayga maya ha taaban adiga malihid waa before school intaan la geynba marka inagu ma naqaan inagu waxaan leenahay cawil wuu kaa weyn yahay si wuu kaa yar yahay si saa uma shaqayso ilmaheennu akhlaaqiyan ereygaan haddaan rabaan yani dadka Soomaaliyeed inay dhibsadaan baa laga yaabaa uma dhisno ilmaheenna 4 ciyaal 5 ciyaal oo Soomaaliya meeshay soo galaan makhaayada waa la kacayaa qaylada hadday soo galaan 5,000 oo cadaan ama ummadaha kale quiet way inagaan barin aamus waxaan malihid ha taaban line-ka gal Mall of America jimcayaasha iyo markaynu tagno ciidaha waxaa la keenaa extra security shaqaale ilmaheenna keliya dadka ka shaqeeyaan waraysta waxaa la keenaa double inta ka shaqeynaysa in ilmaha la ilaaliyo in ilmahaas waxa dhibta geysanayaan shaqaalo badan loo keeno marka anigu waxaan aaminsanahay asa waalid ahaan talo waxba ma tarayso talo wax ka fiican tahay ummadeenu ama masaajid ahaato ama iskuulaha community ahaato in ummadii la gaarsiiyo waxaad TV caaw laga sheegay waxa ma sameynayso masaajidada ugu muhiimsan waay maadaama aad tiri ciyaalka waxa weeye halkaas lagu soo baraa casharada koowaad ee dunida ama macaamilka nolosha annaga waaweynka marmar waxaan ana hebel meeshu qabsada waa loo gooyaa faadil arrinta markaa maqasho kuweena waaweyn masalada kindergarten u baahan yahay هذا إن أنا واحد من مرمش هذا وقت. رسالة عترة إن هل فحملك على هلا بخرك وجوبها جاي. واسع. وصو صاحبك شيء بدنا لو أنا كشيء كسر ما نعرف كلا تعرف. إن وحبر الشدة أقوم سن وأخلاقيات كإلمه وحكم برانية قلنا كارن كمركو إلمه دابر كقوية ليه. تاسع مركو حكيريسا هذا المكان أجنبي أما عربت مسلمين تهنقطه أما حضان هنقطه أولاد هو يريه. هلا ما كبار مرنا هاي. ويحرم أحكوار تلون صار. غربة. حتى عرفت مرة تجي. وحلمان المقطع يسكن الرجل المقطع. هل أمر الله بوليه. ما بدنا ليهم. بس أقول هل يلا بو كوارت صارية. إنك على جيبه توم بيلا هاي ما الباب ده حركة كويتو ما أورله توم بكوجا المقطع. سأقول ها وما تبحر أور بلا. كذا كي كويتو ما إلا أي بس كوري بيت. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. ترجع. ترجع كوري. عرفت بدن. لا كويتو المهم. تكسخرا كير وبخلدر على المهي. سو حسين ما جيتر. ما جيت. وبخلدر. وبخلدر تكسي. طبعا كان عمرك $1 بس. وكم زحمة حيوان. كم بحكرته. كم بحكرته. بورصة سكول كي بوقتي. كم بحكرته. يا أفتر سكول كي نسويان. قياس بركة طبعا كويتو المود. والسكول لقى ودكسخران لقينين. وتربية في عكس وكرين وصاقع هالمر. هيرو حجاني هذا إذا حجال اللي حتى ما قدام به. مركورت مركا خلكوا حصل إيسها حديو المها هذا كنترول كرين أو بنكرين كرين. فضلا تكنولوجيا بلون بهجر مريكان كوا ماركتي أو وحيرين هيا. مركا هذا يقال إنه أنا هنو قرباء وتري وبابا يعني. لكن لوش نبتع. أنا تلي المبان له. ما شاء الله مركا وخليها المها ولدتها خالد. اللي حبل له. ها. أفرنا وصي سعود. قالوا كل لو كل جنتي سوي جيران. ما عندك كتير وحال كنترولا. waxaan ma korin kartaa mise ma korin kartid laakiin hadda capacity gaadu ama financial ha noqoto ama aqoon ha noqoto ama isku duubni family ha noqoto hadana ilmihi korin karin asxan waxa fiican leh ilmaha maar toogto iskaga jiro banaanka tamaya Soomaaliya aan kuwa loo heen waxay cunaanba hadii idinku waxa ka leeyahay dugsi moogta ba wali waxa arkaysa islaantiyo 10 dhinacyada haystaan xaamanana ninkeen mid kale u guursanayo mid kale u guursanayo
marka haddiiba dalkii Soomaaliya oo aynu ka nimi sida loo dhalayo mid waxaystay mid waxaysan de wali dhaqankii culture-ka wali halkan ka jirta wali Soomaalida u beenahay waa Soomaalida u beenahay ma waxaan ku yar tarin lahaa walaalka saaxiibka AJ wax badan baa ku raacsanahay laakiin AJ waalidiintu ku dhagan yahay waxaan ku yar ka soo horjeeda wax yar waxaan maanta TV ka sheegnay meel lama gaadhay wuu gaadhayaa inta maanta TV waxa laga yaabaa globalka dhan inuu gaadho adduunka dhan uu gaadho soo maanta ku celino hadana berri ku celino hadana berri ku celino marka dambe way duxaysaa wixii waxa loo baahan yahay waxay barnaamijyada noocan oo kale ah waalidka lagu wacyi gelinayo in badino waxa ta marka qaar koox ta toon hoosteen qabano oo waalidiinta meeshan keeno in marka laga doodo warsa ilmaha loo koriyaa warsa ilmahan gaangiska oo suuqa galay oo soo celina war hadii ragii la yahay dhibaatada ma ragga keenaysa masuul hadda taas sheegtay mar dhawaad ma yar waxa leeyahay xafiisoy waalidiintu ugu yimaadaan 82 qof baa ii diiwaan gashan 82 qof waalida ii diiwaan gashan oo wada dumar halina kuma jirto ragii meeya midba maalin ninkii keentay markaas ka sheekay wixii ka sheekay magtaan waa soo waashay buur waa soo waashay nin wiilkaan waa gaangis waa munaafiq meel xun buu socdaa martaba soo waana ninkan hayo keenay uu bakaayo ninkii baa xanaaqay marka waxa loo baahan lahay raggu inay fahmaan intuu towarfoorka intuu tago ama moolka tago oo maanta oo dhan heel baa saayidii saasada Soomaaliya ku mashquulsan lahaa inuu ku mashquulo oo gabadha garab istaago oo guriga isku qoro oo reerka madax u noqdo oo dhaqaale wixii soo baxa la wada arko oo meel istaag iyo fadhi ku darku joojiyo oo caruurta xoog saar way baalka qiyaamo waa la weydiinaya asaga duulka caruurta ubnaha way waxaan kala rabaa dabadaas in xusuusiyo Faadil wuxuu kala shaqeeyaa caruurta badan oo waliba lagu yeeshay lacagta jaamacadaha ama college ka dhigta oo u daraab gareeyay iyo lacagtii bixin kari way ama nolosha ku adkaato aan helin taageero Faadil arimahaas aad buu uga caawiyaa caruurta sida lacagta looga cafin lahaa cidda u baahan scholarship free inay heshana halkan uu u raadiyaa AJ gabagabadii baan taaganahay inagoo mawduucyadeena ay noqon doonaan kuwa aynu ku sheekaysano waalidiinta inaga laftigeena waalidiin baynu nahay de cudurka ay Soomaali qabtaan waa wada qabnaa anigu hadda midaan ugu waay ay joogto marba isu kay waa xoogaa markay wax iga yara diido awoowanahay waana ka cabsadaa inaan xoogaa yara dhirbaaxo haddana xoogaa waa yara canaanta iyadana way ugu adkaysaa laakiin sideeda baan u dhaafaa aniga marka dambe intaan soo kaxay halkaan geliyo waxa sameysay xoogaa khalad baa sorry dheh ugu dambeyn waalidka hadda ka daawanay Soomaali Cable talada aad siinayso ugu wanaagsan si ay wala macaamilaan carruurtooda ama u korsadaan maxay tahay ayagoo aan ognahay waalidku inay leeyihiin knowledge cilmi iyo aqli wax ku koriyaan adiga maxaa siin lahayd wallaahi horta anigu waxa taladayda ugu dambeysay inkastoo aysan ahayn maanta taladii ugu dambeysay barnaamijkan waa socon doonaa insha Allah aqli badan iyo dadka saaxiibul aqligana oo Soomaaliyeedna waa la kaashan doonaa anigu waxaan aaminsanahay ilmahan adigu haddii aadan waqti gelin qof kale waqti gelinay tusaale ahaan wadankan ilmuhu dhibta ugu badan oo ay suuqa la galaan waxaa ka mid ah ilmaha waxaa lagu sameeyaa wax la yiraahdo polling yani ilmaha waa hoos baa loo dhigayaa himigooda tusaale ahaan cunug baa wuxuu qabaa kabo $100 cunugaagana wuxuu qabaa kabo $10 ciyaalku way ku caayaan waxay leeyihiin YouTube marka aduu ku imaanaya wuxuu ku leeyahay aabe kaba iiga adigana waxaad rabtaa guri inaad ka dhisatid tuuladii aad ka timid oo wuxuu tarayaa aysan jirin wada ku noolaanin cunugaas marka hadduu kabaha kaa waayo maalinta dambe wuxuu u tegayaa kabaha qaba wuxuu leeyahay kabahan xageed ka keen wuxuu leeyahay baby mom baa tahay cunug yar oo hooyo karisay baa tahay anaa ku aqaan cunugaa 2 meelood ayuu end up ku noqonaya ku dhamaanaya number 1 inuu wax soo xado cunugaas ligeeyo meelaha wax laga labo in loo dhiibo bahashan la dhuuqo xashiishada uu iibiyo cunuga maantaas uu labadaas galo mar dhaqaale soo galiyo hadii dhaqaale soo galo cunugaas waa ku daayay maanta cunugaas dhaqaale uu soo galo uu ku daayay marka taladayda ugu badan oo aan siinayaa waxay tahay ilmahaaga haddaadan waqti gelin qof kale gelin هل تدال أصل الصومالي هان مسلم هان وأنا ما حسنتها. واي فاضل. قناتك. هذه أدبار وأفرح صناعي برنامج كروح ضبان. وارد سؤال وحلي لها كو هرت أنتينان المائي وحكي حوك سهرين. اسكو ضياء سوالد هان إذا كنا داخل سون قطان. أو ذيك يا جماعة داخل سون قطان أو ترى غيرك أو ذاك توا مهم جدا.
tan kaliya ilmaha waxaa isku daydaan ilmaha inaad maskaxiyan u korisaan isku daya si walaalka saaxiibkay eeje sheeg waa run ilmaha wuxuu qabaa saacada iPhone Apple Watch oo dee qaali ah $100 qabaa ilmaha waxaa laga yaabaa inuusan waxba qabinba marka ilmihii inaad maskaxaan u korisid oo u tusisid materialkan iyo dhalaalkan iyo waxa la arkayo inaysan waxba muhiim ahayn hadda samta marka qaarkood xitaa financial inaad la wadaagtid heerku waa muhiim jiddan inay isku duubnaadaan waxaa kaloo dhilaa reerka intay goor tahay ilmahan markuu iskuulka aadayo ka warqaba dugsi sare aado ama dugsi hoose aado waa inaad ka warqabtaa haddii aadan waxaad ku dhaanta jirin oo markaas leedahay waxaa u baahan tahay wax ama jaamacadda tala ka siiya ama iskuulka tala ka siiya ama ilmihii kugu celin baa in lala hadlo u yarbaa aragtinta waan tala badan baad ka siin karaa wax la soo xiriirsaan saaxiibka Cawl asaga telefoonkiisa siin doona insha Allah idin wala soo xiriir kartaan marka halawad insha Allah waayahay labadiina aad baa maasantiin saaxiibayaal daawadayaal barnaamijka aanu kaga hadlaynay waalidka iyo caruurta keebaa khaladka iska leh dhibaatada ka imaanaysa caruurta waalidka mase caruurta inagoo og inaynu barnaamijyo noocan oo kale u baahannahay iskuna waanu talooyin kala qaadano ayaa maanta waxaa barnaamijkayga martii ugu ahaa Soomaali Cable Studios ku yaala magaalada Minneapolis aad kala socoteen AJ Warsame Cabdirasaaq Warsame oo ninka dhinaca bidixda fadhiya iyo aqoonyahan Faadil Sheekh Maxamed oo labadaba barnaamijkan talooyin ka bixiyay taabtayna dhubucda iyo dhibta halka ay ka imaanayso annagoo barnaamijyadan ka dhigan doona taxane ayaan intaa kusoo gabagabeynaya barnaamijku waa caawa iyo Cawl anigu Cawl Nuur Shira ah ayaa barnaamijka idin xiriirinayay anigu Cawl Nuur Shira ayaana barnaamijka soo saaray sidaas iyo nabadgelyo